بسم الله الرحمن الرحيم. لما أمة الصومالية بيغستو دوب كجوجدان وقت كستودين تاعي والفنان محمود الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشمان توار 8 جولاي 2026 ولا يالو برنامج كان خفرتان وياي مقاوات أركتين انت هذا دمرين نحو ناف مركب وحق صور سبيي 6 قيبون خيرت قوات وبرنامجي صومالي أمور جلوبال oo lagu qabtay xafladiisa Minneapolis. qaybta labaad waa xafladii 26 Juun iyo 1 July oo lagu qabtay magaalada Minneapolis. qaybta saddexaad waa ciyaarihii kubadda cagta oo lagu qabtay magaalada Minneapolis. walaalayaal fiiro gaar waxaan idinka codsanayaa barnaamijkan haddaad fursad u heli kartaan inaad ku fiirsataan telefishinka waxaa ku jira cajiladaan Maclo Media YouTube-ka markaasaad arki doontaan waxyaabo badan oo idinka qarsoonaay ama telefoonka aan awood u lahayn. marka walaalayaal ku soo dhawaada baxda Maclo Media sidaas iyo nabadgelyo amaana Allah iyo amaana rasuul.
وهي كاميرمانada hal sawir qac ku wada siiya hor u soo sikada waxya dhammaantiin waa idin salaamaya oo ku mahadsantihiin sida weyn aad ii sharafteen aad iyo aadaan ugu faraxsanahay mascad waa runtiis aan soomaalinimo ku ciyaari waxaan u malaynayaa hadda dhammaan qof kastoo soomaali ah sida aniga soomaalinimada ka dareensannahay inaan kulligeen ka wada dareensannahay xafladahan oo kaleete waa xaflado muhiim ah waxaan fursad u helnaa in annaga aan isku hambalyayno annaga in aan isdareensiino inaan isku faraxsannahay waxaan aragnaa xataa mararka qaarkood dad aanan ogeyn shaqaday qaban mooyaan ama contributionka ay suubin mooyaan aanan ka warhaynin in xafladahanayta aan ku barno oo aan u hambalyayno marka hambalyadaasaytina aad iyo aad ay muhiim u tahay dadka badanaa markay ay dhintaan aan la xasuustaa in wax ay tari jireen iyo wax inay ahaayeen iyo inay soo jiri jireen intay dadka nool yihiin way fiican tahay in isxasuusiyo in qofka aan ku faraxsannahay shaqada uu qabanaayo iyo wuxuu yahay marka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maxaa la sheegay Global Somali Awards dadka soo qabanqaabiyey dadka contribution-ka dhiibay sida xafladaanayta quruxda badan oo cashada macaan aan uga soo qayb galno fanaaniinteena aan jecelnahay oo iyagana noo imaaday Somali Museum la-aantooda uma malaynaya meesha maanta aan joogi lahaa iyo jecelkiina iyo ducadiina iyo dadaalkiina marka Soomaali wixii qolkan ku jiro iyo inta ka maqanbo kulligiin guushaa waa isla wada leenahay waa mahadsantahay lejanka maxamed maclow ayaa abaalmarintan bixinaya hala soo dhaweeyo maxamed maclow waa musician faraha looga gubtay ninkani waa ninka kaliya ee Soomaaliya White House-ka America ka tumay heesta astaanta qaranka Soomaaliya hala saxbiyo abaalmarinta isaga u geey isaga guddoonsiinay هيا صاحبك مركو قدونسينا يا هلا سيو صاحبك ومجهده صاحبك ومجهده كوحدة سومالي ميوزيوم ما انت اسبيني كم مدن تاهي وركوحدة هلا صاحبي سومالي ميوزيوم وما سنتهين وايه abaalmarinta lifetime achievement award waxa ku guuleystay nin ummadda Soomaaliyeed muddo badan u soo shaqeynayay in ka badan 60 sano ayuu qaranka Soomaaliyeed u soo shaqeeyay laga soo bilaabo gobonnimo doon ilaa iyo markii gobonnimada la helay ilaa iyo ummadda Soomaaliyeed markay burburtay Soomaalidu markay islaysay oo isdagaashay oo isbaabiisay lukuma aanu yeelan inuu dagaaladii sukeeyay ka qayb galo waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee ummadda Soomaaliyeed iyagoo raalli ku ah heshiis ku ah magaalada Carta ee waddanka Djibouti ay ugu doortaan inuu noqdo madaxweyne Soomaaliyeed ninka aan ka hadlayo waa Cabdiqaasim Salaad Xasan abaalmarintan sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inay guddoonsiinteeda ka qayb qaataan Hiba Maxamed Hudoon Hiba Nuura iyo Maclow oo iyaguna ka mid ahaa dadkii wasaaradii uu maamuli jiray ka shaqayn jiray Bismillahir Rahmanir Rahim. Distinguished guests, members of the Somali community, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. I'm deeply honored and humbled to receive this valuable award from the Global Somali Awards. I accept this award not for myself alone, but on behalf of every Somali man and woman who has contributed to building our nation. Tonight, I dedicate this recognition
to the Somali freedom fighters who paved the way for our independence, from Sayyid Muhammad Abdullah Hassan to Hawat Tako, and to all our founding fathers and mothers who fought day and night so that we could have a nation called Somalia. I dedicate it to the Somali youth. I dedicate it to the Somali diaspora. Despite the challenges you have faced, you have never forgotten your homeland. I also dedicate this award to my colleagues and compatriots who worked tirelessly to revive Somalia after the civil war and to support the art of peace process. And finally, to my wife and children, thank you for standing by me through every trial and triumph. Your patience, love, and sacrifice made this journey possible. Dear fellow Somalis, our nation has endured many challenges, and the road ahead remains fragile. What we need now are dedicated people and communities who do not forget their homeland. We must stand by Somalia, not only through charity and support, but by returning to invest, to build, and to serve. Only through unity and collective effort can we secure a stable, prosperous future for our beloved Somalia. Thank you once again to the Global Somali Awards for this honor. May Allah bless you all, and may He guide and protect Somalia and its people. Mahat Sanidin, thank you. intaana fanka bilaabeen hal mar waxaan ka codsanayaa hibadhowra boqorada codka iyo boqorka fanka macluul inay fasaxayso may fasaxdaan inay hayso maamada iga weyn horta waa anay maamada amar dhibta maamada marka waxaan u sheegaa fanaaniinta da'da yar inay ku daydaan dhaqankan fanka waa qori isku dhiib fanka qabiil ma ah fanka waa wax farxad ah القعس Artiga DJ Jelani halii raadiyay tir heestaas ay ku ciyaareysay 2 years ago heestaas anaa la jeclaystay haddana waa ku soo gelinaya dhamantiina soo dhawaada kasii ilahan soo gelin please soo wada dhawaada waa boqoradii shanta Soomaali waa boqoradii shanta Soomaali
annaga fankeenu dhaqan uu leeyahay waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo dhaweeyo the one and only legend ma dhihi karo waa legendary Baba Maclow waa musician waa fanaan wuxuu nooga yimid from London. Thank you Baba iyo aflax inaan caawa ama maanta bulshadayda la baashaalo Soomaaliya maxaa jira sana horaad ficneedeen sanad masee wax jira Soomaaliya ma sha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim horta sharaf ay tahay ilaahay mahadiis anoo nool mar labaad aan idin dhahayo iid wanaagsan guul wanaagsan shacab wanaagsan talamaad walaalkayga waxaan u sheegaa fanaaniinta dhaqan bay leeyihiin fanku waa qor isku dhiib annaga dadaan ka soo qaadnay annagana ayaga u dhiibni waa ku mahadsanyiin sidaad ii sharaftay ilaahay kuu sharfo haddana ku soo dhawow sidaas iyo nabadgelyo ammaana Allah ammaana rasuul ولا لما غناني هجري وعقوقه ولا لما غناني هجري صلاة وكا أنتي معا Soda is better because ولا لما غناني هجري وعقوقه ولا لما غناني هجري صلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالين وناكسن مالين بركيسن وحنو goobjoog ka nahay isla markaana aanu markhaati ka nahay furitaanka ciyaaraha toddobaadka Mareykanka oo sanad kasta lagu qabto dalka Mareykanka run ahaantii geeska gees darafka daraf markaan indhahaygu qabtaan waa qawaamiirtii isboortiga guud baan ka hadlayaa si gaar ahaaneed ma sidoo kale marka laga tago Mareykanka iyo Canada waxa sidoo kale martino qaaradda Yurub waa from Finland Sweden UK Norway isku wada dar dhammaantood waxay u joogaan sanad kasta uga soo qayb gaar iyo Canada Latin America waa isku daray Mareykanka Canada waan gartay hadaba waxaan u nimid wax kale maaha inaanu muujino in ciyaaruhu caafimaad yihiin in ciyaaruhu ay isdhexgalka bulshada hadalkan soo koobaya aan halkan marka dariskayga u leexdo Canada aad bay u sharfan yihiin saddexdooda intooda oo dhiba gudoomiyahan ku hormaray gudoomiye adan ku wacsuumay kadibna macallo oo sii dibaysaa insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu calaykum dhamaan walaalaha qaaliga meel walba ay ka yimideen waxaan leeyahay waa mahadsantihiin safarka aad soo gasheen dadka Yurub ka yimid especially waxaan leeyahay waa mahadsantihiin safarka aad soo gasheen wax sahlan ma ahan waa ku mahadsantihiin Finland Sweden
UK dhammaantiin waa mahadsantihiin waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dhammaantiin anoo ku hadlaya magaca Toronto waa mahadsantihiin salaamu calaykum dhammaan bismillaahi raxmaani raxiim waa anigoo ah fanaan maxamed macluun nuur anoo ku hadlayo magacayga iyo magaca fanaaniinta Soomaaliyeed waxaa sharaf oo Soomaaliyeed waxaa sharaf ii ah inaan maanta aan ku masalayo fanki Soomaaliyeed dhowr xafladood aanu imid dalkan Mareykanka waxaan u mahadcelinayaa dhalinyaradan barnaamijkan oo wado oo muddo badan ku jirtay oo maantana quruxda badan ay noo soomeeyeen ama nagu soo dhaweeyeen dadkeena wadanka marti ku ah horta koow aad baad u mahadsantiin waa la soconaa ciyaartooy isugu keenayo ama fanaaniin isugu keenayo inay shaqo dhib badan ay tahay marka waxaa idin leeyahay ilaahay ha idin fududeeyo ilaahay ha idin fududeeyo ilaahay ha idin fududeeyo ilaahayna kulligeena ha noo fududeeyo anagoo farxad aan ku nimid كبدنا فرحة نوع نماط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan soo dhaweynaynaa marka hore dhalinyarada nooga timid meel kasta oo adduunyada ka mid ah oo timid ciyaaraha asbuuca Soomaalida oo lagu qabto marba North America meel ka mid ah marka sanadkan waxaan la kulmay insha Allah maaragtay in gobolka Minnesota ay u heshay nasiib aan goob joog ka ahay marka anoo ku hadlayo magaca isboortiga magaca guud oo bulshada gobolka Minnesota anoo ku hadlayo ciyaartooyda Soomaaliyeed anoo ku hadlayo marna maamulka isboortiga hore marna ku hadlayo tababarayaasha hore intaas waxaan leeyahay hambalyo in aan la iloobin in aan la taariikhda ayna dhumin in ciyaartooyda Soomaalida oo qurbada la keenay in ay dhaqankooda hilmaamin inay waxa hilmaamin in la ilaaliyo in maaragtay ciyaaraha waxa ay kamid yihiin waxa aqliga dhiso oo horumarka dhiso waxa looga badbaadi kaliya waxayna soo qaxiyay waxa looga badbaadi karo waa isboortiga marka waxaan ku dadaalaynaa dhalinyarada in lagu dadaalo meel kasta ay joogaan in lagu daydo reer Canada ma gaarno laakiin annaka waxaan u horeynaa North American oo intayna kala annaka u horeyn reer Minnesota danda marka aad iyo aad waxaan mahad u celinayaa qabanqaabiyaashii kulli dadka soo qabanqaabiyay waxaan aad iyo aad u mahad celinaane anoo nool inaan beriga maxamed macluw saragno oo tiyaatarkana gudbi jiray oon asaga sugu jirnay ilaa maaragtay oo ka yimaado aad iyo aad ay maaragtay waxa noogu tahay marka aad iyo aad u mahadsantiin walaalihii sadane tartiib le intilaab sadane tawfiiq waldere tol maqala dalada ibako yaase tak sadane tartiib le intilaab sadane إلها جوجي سيا جوجي 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 إلها